ما إسرائيل the best way والدولة ugu wanaagsaneyd war haddii lagu hanjabo ku caawin karto wax kaa dhicin karta haddii dhaqaale loo wax kaa haddii loo baahan yahay diblomaasiyad iyo xidhiidh adduun wax kaa caawin karta oo badan iyagoo ka hadlaya maad maqasheen no miyaad maqasheen iyagoo ka hadlaya dadka dhowrka half millionka ku dhow ee maalinkan maanta magaalada muqdisho dhulka lagaga qaadayo ee banaanka loo dareerinayo oo dhulkooda laga xoogayo iyagoo u gargaaraya miyaad maqasheen maya maydaan maqal laakiin maxaa maqashaa habar baa iska hawle heladay nootuma absolutely dhag jalaq loo siin maayo anigu niyow muxuu yidhi ninkii weligeyba meel lagu jaban soo jiqi la weynaa tan iyo maalintan garaadsaday iyadoo dhaliil iyo cambaarayn media ilmadayga qubanaysa nimanyo waxaad moodaa inay isku ballansadeen sheekh iyo shariif iyo kan ay u furan yahay xataa kuu u furan yahay telegramku iyo koodaa sheekha maaragtay waxaad moodaa inay isku ballansadeen maaragtay maxaa la yidhaha cadaawad iyo maaragtay iyo cuqdad aan dhammaanayn oo meelay ka socota aanad garanayn iyo cayda somaliland inay isku ballansadeen baad moodaa waa fiqiyo meel taagan dhammaantood oo koobi iyo bastili maaragtay koobi laga wada dhigay marka nimayow anigu waaba ku raaxaystaa cambaarayntan iyo maaragtay maxay bay sameeyey waan dhegaystaa anigu aad baan u jeclaa iyadoo lagu soo hadal qaadi waayaa ka xun waxaan leeyahay maxaa la dhahaye nimayow anigu beri horena waan idhi haddana waan idhiye dalka la yidhaha Israel dalkii koowaad ina ictiraafkii ugu habboonaa buu ahaa yacni waxaa socda iyo cambaaraynta iyo wax laabta u dhigan karayay ma jirini kii ugu habboonaa buu ahaa absolutely waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waana maaragtay maxaa la yidhahdaa bal qiyaas iyadoo inagoo muxuu ahaa ina ictiraafi lahayd war muxuu ahaa wadamada yarada bariga galbeedka Afrika Gambia oo kale iyo Guinea Conakry iyo Guinea Conakry waa la maqlo markaas markiiba idaacada laga xiray waxa ku baashaalay kuwan la yiraahdo Masar ayaa u hanjooy warbal Ilaahay baan ku dhaariyay halka waa dawladda noocaas weey ma Israel the best way waa dawladda ugu wanaagsaneyd war haddii lagu hanjabo ku caawin karto wax kaa dhicin karta haddii dhaqaale loo wax kaa haddii loo baahan yahay diblomaasiyad iyo xidhiidh adduun wax kaa caawin karta in dhinac walba ka dhisan waa niman cilmi ka dhisan waa niman dhaqaale ka dhisan waa niman hub ka dhisan waa niman 300 milyan carabta meel iska saaray iska celiyay wey nimankaas waxay meesha ku gaadeen waa khadi kalwi waa niman tooda ku adag wey waxyaalaha intaynu laba iyo waa walaalaheen yaan ku jirnay imka dhowr iyo 30 sano u dambeeyay haddii aynu teena qaadan lahayn usta nimankaas u dhaqmeen aan u dhaqmi lahayn walay maanta meeshan joogna 5 jir libaad ayuu taagnaan lahayn laakiin maxaynu 30 sano ku lumin wada hadal ay la gal waa walaalaheen Soomaaliyeed baan ku jirnay dadkeenu maanta absolutely aad iyo aad buu isu bedelay waan mahadinayaa qof kasta oo maaragtay maxaa la yiraahday maanta waxaan maqlay wasiirkii madaxtooyada oo dadka aadka isku bedelay wax badan baan ogaaday imika 3 sano u dambeeyay marka qalaalaasihii Soomaaliland soo food saaray aniga aragtidayda wax badan buu ka bedelay dad badan baa waxay moodeen inay Soomaaliland gilgilinayso markaas balaayo dhan ugu soo baxday oo gambar baa la inoo soo qaatayba waa la daawanay hadday kala daadanaysaa hadda tolo xageen kaga bilowna waan yaabo waxaan wareer dalku cadow badana oo dadku cadow badana maxaa dhacay sidaan u cawdo cadow badnaan alxamdulillah
maanta meel aad iyo ha may waa ogsiinaya cagmadhiga waxa shiri jiray xilligii sanamta qolo la yidhaha gaas dhigoolo aad u fiicneed oo dagaalka ku fiicneed oo soo geli jiray moogto marka aan xabadda ka fadhiisan jirin marka waa gaas dhigoolayaal fara badanna in leenahay waa soo dhaweynaa dadkeena o dhan anigu intaasaan kusoo gabagabeynayaa new Jerusalem maxaa la yidhahdayay damniyow dadku magacuun bay maqlaane magaaladu 80% nimanka Israa'iil baa gacanta ku haya yani